السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتك وصلوا هذا ويوتيوب شانل ولكن كفيلمس أفرويس ساد حق هورك صار كتير ما أنت عارف واحد صار فريسة إن أنا كهذا أما فكر كي غير كهوبا كديبو وحيابا الصومالي ذا كلا قيبي أرنك كوسابسن عبد الملك علدون يحد كيسبه عبد الملك علدون سوي دوكتين برتو حرية حتى وأركز على السوشيال ميديا لو حيستفري عبد الملك علدون صمف عبد الله علدون هل سيداي واحد شروح نذا قرصون oo ah waxyaabihii kala qaybiyay dadka maxaa berigii hore codon wala xiri jiray dadkoo dhan way taageeri jireen imanka dad badan uga soo horjeesteen maxaa sababay in dadkii kala qaybiyay adduunka codon taageeri jiray oo imanka loo arkaya dad badan oo social media kaga doodayeen ninka jeelka hal lagu fogeeyo horta waxaan lagu xiray inta aan ogeyn inta ugu ogtay inta aan ogeyn waxa weeyaan jaamacad ka jirta Soomaaliland Hargeysa gaar ahaan iyo dugsiga soo wiileeday dugsi dhaxwa وأبارس تج أما إلا برواقة السكول هو جامعة البرواقة لها بوحة وكو إيضاين يعني ما شاء الله وفا في دين تك كريستيان تيجا تدك قالة نقم الحنوق برو حبلا لقول أسكرها حي سرق أسكرها باشالة أسقاوي أسكرها حي كني نظم حي قاطع وحياب إنه عاصو إد تكون هانتي وفرحون بوشاقين ماشي أسكي شفتو تاسو وعديمه وكيني ينا قار الصورون كروارون إن كستو حقيقة أيدي وحنا بانلهل لكن سووا عطيمة بدن تاكينيو وكدوديو iyadoo arku sida yahay ba musabiixi ama madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu tagay sawiideen ba jaamacadii isagoo qalin jabin ka qayb galay waana amaanay ba aad ba u amaanay amaanti sidaad u amaanay saacad ama 2 saacadood ka bacdi waxa uu soo jawaabay Cabdimalik Caldoon sidii laba qof oo isaysto kale waxaan erey kooban ka oranayaa ereygii madaxweynaha Soomaaliland maalintii shalay uu ka jeediyay jaamacadda raacsan dugsiga abaarso ee magaceeda la yiraahdo barwaaqo shalay oo ay taariikhdu ahayd 8 muharram 1443 hijriya kuna beegneed 16 bisha 8aad 2021 madaxweynuhu hadalkiisaas ama ereygiisaas waxa uu si weyn u difaacayay dugsiga abaarso iyo jaamacadiisa isla markaana waxa uu weerar ku qaaday dadkii eedeeyay dugsiga qodobo kala duwan ayuu ka hadlay waxa aan marka jawaabtiisii ayaa laga raacay horta xadhigu halkaas uu kaga yimid waa la xiray hadda jeelka ku jira haddaba su'aasha isweydiinta la waxay maxaa dadkii kala qaybiyay oo wati loo taageeri jiray maanta dadka qaar uga soo horjeeda sababta looga soo horjeeda wax kale ma aha Cabdimalik Caldoon sida wada ogeydeen waxa weeyaan isagu waxa uu ku doodiyay wad garaasaan laakiin dadkiiba waxay u qaybsameen laba midab qaar waxay leeyihiin waa sidii horebo Cabdimalik Caldoon waa nin samafula ah aad xaqiiqda u taagan haddii uu dhimanayna xaqa ku taagnaanaya kuna doodaya Soomaaliland waxyaabo fusuqay ku jiro dhax laga saaro diintii baa la fogeynaya la soo dhaweeyo waxaas ku doodaya waxa ku dirir markaas oo koobo bay ku doodayaan kuwa kale waxay leeyihiin Cabdimalik Caldoon nin ilbaxa ma aha lama jaan qaadi karo casrigan lama jaan qaadi karo waxay caalamkan horumaraya waxbarashadan caalamka laga raadsanayo cadaanka lala noolaan karayo oo lala dhaqmi karayo ee wax lala dhigan karayo waxa dhan ma fahansana waa nin macnaa waqti jaahili ku jiray bitaagay oo dambeeya oo waliba iyagoo u raacin inta kaliya uu kuma keenayaan waa nin argagixiso oo Soomaaliland ma qalbiyada fog ama midigta fog waa dadka fog ee aadkay u madax martay diintu ama in xaq lagu taagnaado waxaas ay ka badbadis baa ku jira badan bilay marka Cabdimalik Caldoon saarta labadaas uu kala qaybsamaya labadaas aboo ku kala qaybsamaan oo sida hadhaare dibta kale jirta waxay tahay Cabdimalik Caldoon soo ogtiin ba xadhigiisu aad buu batay waa 5 jeer ugu yaraan waa 5 jeer markuu ugu yaryahay hadana 4-5 meelaha u gaadhay xadhigada badan horta aan ahaan ama qof kasta uu fahmi karaa in qofka sida loo xiray asaa loo caburiyo xorriyada looga qaado in qofka xiraya ama dawlad kasta dadaalkiisa soo xiraysa dawlad kasta oo xidhaa Cabdimalik Caldoon waxba lagu tuhmiyay horta ha yaraato ama wiilaato laba mid horta koow wal og yahay ninkan inuu suurtagal xitaa tahay inuu xitaa kursiga u sareeyo sidoo uu damcayba uu damcay kaga jiro oo lisleeyahay ninka xil iyo inuu dalka qabsado gibigiisaba caqiidada bedelo sida daalimaan oo kale iyo meelaha qaar la yiraahdo ka shabaha dawladuhu way ka baqaan inta badan way iska xiraan shacabku inaan fahmin baa laga yaabaa ay ku mashquulsan yihiin kaliya kelmadu leeyahay iyo samafalkiisa laakiin dawladdu waxyaabo badan ay ka cabsi qabto oo israawo ka iman karaabay ka jira
oo sidiisa looga maaragtaane looga baqay inuu rasameeyo inuu aad dowladda uga soo horjeesto inuu ilaa dib magarataane baa jirta saadaal ahaan haddeen u yidhaha maanta aan videoga inaan kaga faa'iidaysanayna waxa weeyaan cabdimaalik coddo laba mid buu noqon doonaa amba nin wuxuu noqon doonaa sida imika Afghanistan ka jirto oo kale intuu wax u sameeyo wax ka bedela Somaliland ama meel kasii Soomaali deegaanka halkii uu awoodo oo in meel ka aragno raana ninka cabdimaalik coddo baalka maaragtaane wax ka bedelaya oo Ameerika xiisaa noqdo ama si kala baa noqdo ma rajaynayay ama de wuxuu noqon doonaa nin jeer noloshiisa ku dhameysto oo aakhirka leeyahay meelahaas ku dhintay labada mid buu noqon doonaa horta waa saadaashu say tahay oo ninka nin la yareysan kara ma aha dadku intay arkayaan inta koos jiran iyo fikirka iyo kalsoonida iyo waxyaabaha ku jira baa ka badan waxaan rajaynayaa insha Allah inuu wado kasto qaadayo ta ugu fiican uu qaado inuu noqdo kii taw toosan qaada haddaba haddii intaas rabay maanta inaan idin soo gudbiyo oo ma ahayn warbixin badan laakiin kaliya inaan dadka aan fahansanay iyo fahansiyalka xaaladdu maraso haddii ay tahay markii koowaad channelkan igu aragto ama markii koowaad tahay like iyo subscribe kaliya isku raaci adigana waxaan rajaynayaa fikirkaaga mucaldoon free baad leedahay mise ninka hala xidho argagixis ayaad leedahay bil commenti ku soo qor oo si loo badan yahay insha Allah dadku taageeradiisa eegi doonaa waan idin salaamayaa dhamaantiin videogan iyo kan ka xiga insha Allah aragtida